aynu u galno markaa kelmadda shaytaan shaytaan waa eray loo isticmaalo qur'aan ahaan iyo xadiidba waan daliilka keeni doonaaye shay kasta ama makhluuq kasta oo madax adag oo macangaga ayaa horta shaytaan la yidhaah oo xayawaanka marka uu aad iyo aad u madax adag yahay shaytaan baa la odhanaya bini aadmigu qaar madax adag hadday ku jiraan shaytaan baa la odhanaya makhluuqaadka jinka qaar madax adag hadday ku jiraan shaytaan baa la odhanaya marka ereygani waa erey jaamic ah oo wax allaaliyo wixii madax adag oo dhan ay soo hoos galaan oo mar iyadoo qur-aanka kariimka ah shaytaan loo isticmaalayo ibliis laftiisa makhluuqa ibliiska la yidhaahdo isagoo ereyga shaytaan loo isticmaalayo qur-aanku ku soo arooray oo wuxuu ilaahay qur-aankiisa ku yidhi faazallahuma ashaytaanu canha faakhrajahumaa mima kaanaa fiih markaa shaytaan halkaa waxay ugu jirtaa waa ibliis laf ahaantiisi faazallahuma ashaytaanu waxaa kaloo loo isticmaalaa insaanka iyo jinka hadba kii madax adag labadooda waxaa la yidhaahdaa shaytaan baa la yidhaahdaa bidaliili qowlihi tabaaraka wa tacaala ilaahay wuxuu yidhi wakadalika jacalnaa likulli nabiyin caduwan shayaaiina alinsi waaljinni marka bini aadmiga laftiisu inuu shaytaan leeyahay ayaynu halkaa ka fahamnay mar kale rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam xadiid wuxuu ka warramay saxaabiga la yidhaha abaadar ayuu nebigu la dardaarmay calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi tacawad billaahi min ashaytaani alinsi waaljinni ilaahay ka magan gal shaytaan alinsiga iyo shaytaan aljinkaba markaasaa waxaa nebiga ku idhi aw lilinsaani shayaatiin oo bini aadmigan caadigeen aqaano maqaar shayaaiina baa jira qaala rasuulu llah sal alla alay slam nacam haayo bini aadmigan qaar shayaaiina baa ku jira shaytaanna waa wixii madax adag oo dhan baa la yidhaahdaa oo garmaqaato ah oo macangaga baa shaytaan la yidhaahdaa waxaa kaloo cabdillaahi ibnu saamit saxaabiga la yidhaahdo ayaa wuxuu ka warinayaa abidar laftiisa oo nebigu uu la hadlayo uu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ruuxu markuu tukanayo salaadiisa waxuu kula gabbado oo sutro ah is hordhigo haddii aanu sidaa yeelin hadday soo hormaraan ximaar ama kilaabta madmadow oo kale salaadiisu iyo dumarku hadday soo hormaraan salaadiisu way buraysaa cabdillaahi ibnu saamit oo ka dhagaysanaya saxaabiga abidar xadiidkan ayaa wuxuu yidhi oo aydu badan maxaa aygan madow gaar looga dhigay salaadda uu u burinayaa haddii qofkii bilaa sitaaradda haydu soo hormaro markaasaa wuxuu yidhi abudar nafsa su'aal ayaa nebiga weydiiyey oo aan ku yidhi nebi allow maxaa looga soocay aygan madow ayada kale waxaanu noogu jawaabay buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam alkalbu alaswadu shaytaan ayga madow waa shaytaan macnaha waa ayda nooca madaxa adag buu ka mid yahay marka shaytaanku jinkii ma aha ibliisna ma ahan ee waxaa laga wadaa waa xayawaanaadka la yidhaahdo ayda hadduu mid macangagii ku jiro waa ka madow weeyaan kaa madow baa ugu hawl badan oo ugu hawl yacni inta badanna waan ka warrami doonaayo xayawaanada uu shaytaanku isku soo shabaho ama isu soo ekaysiiyo bisada madow iyo ayga madow iyo bay u badan yihiin waxaa la soo wariyey imaam atabari iyo kayrkiisba markay tafsiirka culimmada tafsiirka waxay yidhaahdeen ina min aljinni shayaaiinun wa min alinsi shayaaiinun wa ina shayطaana aljinni idaa acyaahu lmu'minu dahaba ilaa mutamaridin min alinsi wahuwa shayطaanu faagraahu bilmu'min liyuciinahu calayh waa imaam tabari tafsiirkiisa wuxuu ku soo qoray culimmada tafsiirku waxay yidhaahdeen jinkana qayb shayaaiinaa ku jirta insigana qayb shayaaiinaa ku jirta marka jinku markuu u taag waayo mu'minka inuu ambiyo wuxuu isku dayaa inuu u soo hiishado ama u soo gargaarsado mid shaytaan oo bini aadmiya shaytaan alinsi ayuu u soo gargaarsadaa
si uu waddada uga leexiyo. imaam qurtubi laf ahaantiisu tafsiirkiisa markuu ka warramayo wuxuu tilmaamay qowl uu leeyahay imaam maalik binu dinaar oo taabiciya qowl uu leeyahay buu soo warinayaa oo wuxuu yidhi imaam maalik binu dinaar shayaaiin alinsi taglibu shayaaiin aljinni ina shayaaiina alinsi ashaddu calaya min shayaaiin aljin لأني إذا تعوذت بالله شيطان الجن ذهب عني وشياطين الإنس يجيئون فيجروني إلى المعاصي عيانا. وحولي إمام كاس شيطانك جنك شيطانك إنسك أيا كشر بدن أو كربات بدن شيطانك جنك سببتو يتهي شيطانك جينكو مركز إلهي أدك مغان قشو وكاتشوك سنية لكن شيطان الإنسيقو حتى أعوذ بالله كاقتك معي شيطان الإنسيقو وأنا تكينت هذه جير إن بنا آدمي حمحمي أي كالتأثير بطان وكالرادين بطان شيطان كجينك